اجتماع سواء اجتماع بركيسان dadkuna waxa isku imanaya waa fikir iyo sidii dadku Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu xirmi lahaayeen arintaas ay isku imanayaan marka ijtimaacaas dadka ka soo qayb galay waa dad kala duwan wadamo kala duwan ka yimid Ilaahay dartii baana isku yimaadeen wax kale isku imanay sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxabada iyo dadka muslimiinta ee ka dhaxayn lahayd ay isku yimaadeen caalamkan ka kala yimaadeen waxaan u soconayaa 3 xisho inta kadibna jamaacad baa ka bixi doona tiradooda markaan loo sheegi doono ilaa gaariga ilaa 500 ilaa 300 ilaa 700 gaadha ayaa ka baxaya daafaha dunida oo dhan ku baxaya run ahaantii waxa weeyaan waa dacwadu waa tii ilaa nabiga maxamed soo jirtay oo nabi maxamed adduunyadan keenay oo rasuulku yiri kiina aayad bartow wariga gaarsiiya xaqa waayo maanta ambiyadana way tageen rasuushina way ka tageen dalka laakiin waxa diintii waa ay maanta inooga tageen baaqiya marka diintii si adduunyadan baaqi u haato waxa la doonayaa walaalayaal dhamaanteen inaynu ka wada noqono mas'uul oo aynu gaarsiino kuwa aan muslimka ahayn inaynu gaarsiino si loo helo taa waa in la helaa dad fikirkii xambaarsan oo isku yimaada oo ka shuuraysta oo wax weeyaan caalamka laga wada yimi imka halkan caalamka waa laga wada yimi Pakistan baa laga yimi Hindiga laga yimi Afrika laga yimi geeska oo dhan baa laga wada yimi waxa loo imanayaana wax kala walaal ma waa si litakuuna kalimatu Ilaahi hiya al-ulya say u noqon lahayd kalimadda Ilaahay mid sarreysa salaajigeed walaalay waajibayna wada saaran inaan waajibkaasi garanno Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinniyees wax kala ma aanu abuuran waxaan u abuurtay cibaadadaasina waxa weeyaan waa mid waajib oo inaanu gaarsiino rasuulku wuxuu balaqo anni walaw aaya warkiina joogo ka maqaniga gaarsiiya salaajigeed maanta kulankii maanta bilaabmay waa taayibka noo furmay waa mas'uuliyad qof walba saaran inuu qofka kala gaarsiiyo gurigiisa gaarsiiyo ehelkiisa gaarsiiyo ka mas'uulka ah dawladda uu yimaado oo asaguna mas'uuliyadda garto oo madaxweynuhu garto oo cid walba garato ayaa loo baahan yahay gobolka Togdheer baan ka yimi halkan waxaan u yimi inaan ka qayb galno ijtimaaca wada tashiga ummadda islaamka iyo diinta iyo khayrka badan ka socdaan ka soo faa'iideysano iyo ducada islaamka isku imanayo ummadda islaamka ugu ducaynayo Soomaali dhammaan guud ahaan marka TV qaranka wuu ku mahadsan yahay hawsha qaran uu hayo qarankana waa loo shaqeynayaa ummadda iyo diinta iyo dacwada dhinac kasta waa la qabanayaa halkan horta waxa ka dhacay waa kulan diimeed sideeba diintu la feenay ugu dhaqanaa caalamka kale wada gubanaya gaalada leh iyo islaamka gaabiye daacadka Ilaahay sideebeen islaamkaana ugu yeedhnaa salaada soonka sakada sadaqada iyo wixii la mid ah Ilaahayna faray kuwa kale ee gaalada ana xilbay naga saarane sideebeen diinta u gaarsiinaa taladaas la iskaga wada yimid meel kasto caalamka kamida oo halkan loogu tashanaya fikirkaana lagu dhalaalinaya war diintu sideebeen la feenay ugu dhaqnaa caalamkana u gaarsiinaa dadkuna hadiya jeer waxay iyaga oo luqaday garanayaan wax lagu fahansiiyaa luqada markaa dad soo kulan diimeed halka ka dhacaya baan tagaya maba fahmayo laakiin sidii hore loogu sheegay leeyahay kulankii islaamka dhacaya ayay u garanayaan kulanka islaamku waa xajka halkana waa kulan diimeed insha Allah in kelmadaad oo xidhnayn si wanaagsan u fahanno ayaan doonaynaa sidaan ka wada warqabno galabta halka waxay nooga furmay ijtimaac kulan islaami oo weyn kulanka islaamku wuxuu ku saabsan yahay sidii diintu nolosheena noo iman lahayd caalamkana iman lahayd waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan muslimiintu meel kasta ay joogto shaqada waynu wada leenahay waana shaqay naga wada dhaxaysa waana shaqada Ilaahay ugu talagalay inaan ku wada badbaadno maxay tole walaalayaal insha Allah tabaaraka wa taala nin kasta waa ka mas'uul adduun iyo aakhir waxaan ku liibaanaynaa waa diintuna inay nolosheena tibaado ku dhameystirto dadaal bay u baahan tahay dadaalkaasna afar xaalay inay diinta gelinay u baahan tahay diinta in fikirka gelino waqtiga gelino maalka gelino nafta gelino inta hadaynu maanta diinta gelino inaguna waa kala badbaadayna Ilaahayna waa kala badbaadayna hadaynu laakiin walaalayaal maanta inta diinta gelin weyno inaguna dhexdeena kala badbaadi mayno Ilaahayna kala badbaadi mayno dadkana waxaan ugu baaqnaa muslimiinta Ilaahay muslimiinta qaweeyo muslimiinta Ilaahay qaweeyo qalbigooda Ilaahay soo jeediyo Ilaahay qulubtooda soo jeediyo Ilaahay dadka sayay muslimiinta ha soo jeediyo wanaaga Ilaahay wanaajiyo Ilaahay wanaaga ha aqbalo Ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala halkaan joognaa waa meel aan isugu nibi intaas qof baa isugu yimi khayr baa la isugu yimi
dacwad baa la isugu yimi dacwad baa la fidinayaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka muslimiintaas haya in ilaahay soo kala qaboojiyo walaalayaal dacwaddan waa shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqada nebi maxamed buu ilaahay subxaana wa tacaala u doortay ilaahay subxaana wa tacaala qum faandir buu ku yidhi warabbaka fakabir wasiyaadaka fadaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qum faandir baa lagu yidhi rabbigaaga weynee wasiyaadaka fadahar jirkaagana daahira urujiis fahjuwan markaa nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam dadaalkan diineed loo caleema saaray ilaahay subxaana wa tacaala u doortay markaa shaqadan waa shaqay naga wada dhaxaysa markaa shaqada diinta waxaa la doonayaa inaynu kulligaan aan ka wada shaqaysano adduunyada maanta in laga shaqeeyaa bay doonaysaa in loo fikiraa bay doonaysaa in laga fikiraa bay doonaysaa diintuna waxay doonaysaa in loo fikiro oo laga fikiro oo waxaa la doonayaa caalamka oo dhan in la gaadhsiiyo oo dadkaa gaalnimada ku dhimanaya dadkaasi maalinka yowmalqiyaamaha mukhraatibi ay la istaageen waxaa odhanaya annaga diintiina lama soo gaadhsiin halkaasi ilaahay subxaana wa tacaala baa odhanaya annaga diintana lama soo gaadhsiin markaa caalamka oo dhan inaan diinta gaadhsiino oo dadka diinta gaadhsiino oo ehelkeena aan diinta aanu farno oo dadka diinta wada farno oo shaqaale diineed baynuna ilaahay baa shaqaale diineed naga dhigay diinta inaan ka wada shaqaysanaa laynaga doomi socdi insha allah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dacmaashii oo dhan halkan bay taallaa dadkii adduunka meel walba waa la iska yimi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan leeyahay dhallinyarada de fadhiga ka soo kacoo ka soo qayb gala oo acmaasha iyo diinta inaan ka shaqayno waxaan ku dhi inaynu soo doonanno ilaahay dartii aynu baxno de ducadii iyo waa inaan khayrkan ilaahay aynu qaadanno waa 3 casho alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin